كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo gaarnay xadiiskeena 23 aan soo gaarnay kitaabkeena 40 xadiisan fi tazkiyati wal akhlaaq. xadiiska maanta aan qaadan doono wuxuu ka sheekeynayaa salaamatu sadri, laab fiyowid iyo qofka laabtiisa inay tahay mid fiyow oo uqdad aan ku jirin iyo xaasidnimo aan ku jirin, inuu yahay qof qalbi saafi ah, qalbiga saaf u yahay. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وحوير الله كرهال النقضي أسيو أبيه السحابي قال وحوير قيل وحالقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي رسولك يا وحالقو دحي أي الناس ضدك كيبا أفضل أقوى ناكسين أو أقوى فضل بدن أو أقوى خير بدن رسولك إلهي. صحابي كان وحولي النبي عليه الصلاة والسلام يا لويدي وحالقير رسولك إلهي dadka keebaa ugu wanaagsan, dadkan isku dhex jiro oo wada muslimiin ah keebaa ugu wanaagsan. qaala wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam kullu makhmuumi alqalbi saduuq lisaan, dadka waxaa ugu wanaagsan mid qalbigiisa saafi uu yahay, nadiif uu yahay, xasad iyo uqdad aan ku jirin. saduuq lisaani, carabkiisana run badan, runtana ku dadaalo. qaaluu waxay yiraahdaan saxaabada saduuq lisaani, qofka carabkiisa runta badan nacrifu waanu garanayna rasuulka ilaahiyo runta waxay tahay waana naqaanaa. fama makhmuumu lqalbi, qofka makhmuumu lqalbiga maxaad ula jeedaa? qaala wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam huwa taqiyu, waa mid ilaahi subxaanahu watacaala ka cabsado oo taqi ah wey. annaqiyu haddana saafi ah oo saafi, muxuu saafi ka yahay? nabigaa sheegay, wuxuu yiri laa ithma fiihi, wax dembi ah kuma dhex jiro, asigana dembi kuma dhex jiro, dembina ma sameeyo, dembigu iska ilaaliyaa. walaa bagya, iyo xadgudub iyo dulmina ma sameeyo. walaa ghilla, qalbigiisana kuma jirto xiqdi iyo naceeb qalbigiisa kuma jirto. walaa xasada iyo xaasidnimo. xadiidkan waxaa soo saaray ibnu maaja ee soo saaray. xadiidkan wuxuu ka hadlayaa salaamatu sadri, wax loo yaqaano laab fiyoowida ama qofka qalbigiisa inuu wanaagsanaado, qalbigiisa inuusan ku jirin xaasidnimo iyo xiqdi iyo gaalnimo iyo shirki nifaaq isku dar wax dhan, wixii qalbiga xumeeya dhan inuusan qalbigiisa ku jirin uu yahay qofkan qof qalbi saafi ah, qalbigiisa nadiif uu yahay. waayo qalbiga wanaagsan ilaahay uu ku dhaweeyaa, waxaadna noqonaysaa dadka midka ugu khayr badan, aakharana waxaad ka helaysaa wanaag. oo ilaah uu yiri ilaa man ata allaha biqalbin saliim yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. marka qofkii qalbi wanaagsan adduunkan uu ku leeyahay ayaa aakharo horumar gaaro, ayaa aakharo jannada ku guuleysto, adduunkana wuxuu yahay qofka ugu khayr badan. nabigu markii la weydiiyey wuxuu yiri dadka waxaa ugu khayr badan qof qalbigiisa nadiif ah, carabkiisa runta ku dadaalo. waa dadka wax halaaga waa 3 shay: afkan iyo qalbigan iyo xubinka taranka wey. xubinka taranka hadduu kuu wanaagsan yahay, qalbigaadan xiqdi wasaq aysan ku jirin, carabkaadan uu wanaagsan yahay, qof waxaa tahay aada u khayr badan. marka nabiga labadaas ayuu noo sheegay, aan ka faa'iideysan, runtana aan ku dadaalno, qalbigana aan nadiifin, xaasidnimada, xiqdiga, uqdada, wixii dhan iska ilaalin iyo gaalnimada.